Soomaali badan oo isticmaashay internetka wax waqtigoodu kaga baxaa qabyaalad iyo reer hebel. Qolo kalena riwaayad iyo qosol iyo baraanki baahir lagu sameeyay. Qolo kalena muusig iyo damdam ayaa waqtigu ku dhaafaa. Waxaan fiidiyowan kaga hadlaynaa dhibaatooyinka social media ka Soomaali ahaan iyo faa'iidooyinka social media loo isticmaali karo. Kusoo dhawaada fiidiyogeena si aad ula socoto waxaan ka codsanaynaa inaad saarto follow ama subscribe like-na aad saarto si dad badan u gaaro. Marka koowaad waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka social media kadibna faa'iidooyinka loo isticmaali karo social media iyo talooyin guud. aan ku horeyno dhibaatooyinka Soomaalida social media waxa ugu horeeya akhlaaq darrada social media ka jirta waxaad garan kartaa heerka uu gaaray waxa ka dhex socda TikTok iyo Facebook ayada qabyaalada xijaab la'aanta akhlaaqdu waa wax Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam noo soo saaray inama bu'ithtu liyutammima makarim al-akhlaq waxa la soo saaray inaan dhammaystiro akhlaaqdiisa wanaagsan shayga labaad ee dhibaatada Soomaalida social media ka haysata waa waqtiga ka dayacmaya daawashada video aan waxba ku soo kordhin ama mobilkaaga koriyo hoos wado waqti badan oo aad ka faa'iideysan lahayd social media kaga dayac qofka dhamigu waa maalmo iyo saacado isku tagay haddii saacad kamid ah ay ka tagto qayb kamid ah ayaa ka tagtay shayga saddexaad dhibaatada Soomaalida social media waa qabyaalad iyo siyaasad xagay maanta marayso dhibaatada qabyaalada social media waa mid qof walba dareemi karo in qabyaalada ay noqotay siyaasad ay adeegsadaan siyaasiyiintu si ay u gaadhaan dan gaaro ay iyagu leeyihiin tusaale siyaasi haddii uu rabo inuu gaadho xil waxa uu adeegsadaa qabyaalad indho la'aan ah si uu u gaadho hadafkiisa dadku aan ka fikirin wax qabadku inoo keenaya waa maxay dadku isweydiin arrinta ayaa qabyaalad indho la'aan ah ku raacaya qof marka uu isticmaalo muddo dheer social media waxa uu ku noqonayaa idmaan waa inuu la qabsado social media oo mar walba uu doonayo inuu isticmaalo arrinka ayaa ka dhalanaysa caafimaad darro soo gaadha indhaha jirka iyo maskaxda haddaba si aad u heshid faa'iidada uu leeyahay social media waa inaad marka hore iska joojisaa dhibaatooyinka aan soo tilmaamay iyo kuwa la midka ah waxa ugu horeeya aad uga faa'iideysan kartaa uguna muhiimsan ee aakhira iyo adduunba ku anfacaya waa diinta islaamka oo aad barato aqoonta aad u leedahay in aad kor u qaado waxaa kaloo jira aqoon shaqooyinka looga dalab badan yahay dakhli fiicanna aad ka samayn karto dakhli positive ah video hore oon soo dhigay oo ka hadlaya qaybaha dadka lacagta u soo gasho ayaa kaga hadlay dakhliga positive-ka videoga markuu dhamaado linkiga commentiga hoose ayaad ka daawan kartaa waxa ugu horeeya aqoonta loogu dalabka badan yahay xaysiiska casriga ama waxa loo yaqaano digital marketing waxaana muhiim ah si aad ugu shaqada u qabato inaad taqaano video editing sida loo jarjaro videoga iyo hagaajinta videoga graphic design sida sawirada isku habeentooda haddaba si aad u samayso xaysiinta casriga ama digital marketing waa inaad ka barato YouTube ama website-ada sidoo kale waxyaabaha aad uga faa'iideysan karto internetka waa adigoo noqda content creator inaad YouTube ama Facebook aad dadka wax anfacaya bulshada u soo gudbiya kuna fiican tahay haddaba si aad u noqoto dadka YouTube ama Facebook wax ku soo gudbiya waxa aad u baahan tahay inaad taqaano video editing graphic design maqaalada sida loo qoro arrinta kale ee aad internetka uga faa'iideysan kartaa inaad aqoontaada ama xirfadaada skillskaaga kor u qaado si qiimaha uu kor u kaco dadka kalena uga duwanaato qof walba qofka kale waxa uga sareeya aqoonta uu dheeryahay dadka kale markaas si qiimaha uu kor u kaco waa inaad aqoontaada kordhisa oo aad kor u qaadda aqoonta aad baratay ama aqoonta aad jeceshay inaad barato inta ayuu ka eegay fiidiyogeena maanta commentiga nagula wadaag faa'iidooyinka kale loogu faa'iideysan karo internetka